waxaa jirta su'aal ay aqoon-yahanada siyaasadda iyo daraasaadka colaaduhu muddo dheer isweydiinayeen taasoo ah maxaa lagu cabiraa ama lagu cabiri karaa awoodda iyo jiritaanka dowladeed ma calanka ma ciidanka ma aqoonsiga caalamiga ah mise awoodda ay dowladi u leedahay inay gaarsiiso maamulkeeda iyo sharciyadeeda dhammaan dhulka ay sheeganayso inay maamusho aqoon-yahanka Mareykanka ah ee lagu magacaabo Charles Tillisna waxa uu mar qoray waxa uu yiri dowladuhu dagaalka ayay ku curteen dagaaladana dowladaha ayaa curiya hadalkaas waxa uu xambaarsan yahay fikrad qoto dheer dowladaha casriga ahi kuma dhismin kumana taagna heshiisyo iyo dastuur kaliya waxa ay ku dhismeen oo ay ku taagan yihiin awood ay ku maareeyeen amniga ku xakameeyeen dhulkooda kuna gaarsiiyeen maamulkooda dalka ku nool dhulkaas marka aynu eegno Soomaaliya maanta jawaabta su'aashaasi ma aha runtii mid fudud oo hore lagaga jawaabi karo sharci ahaan Soomaaliya waa hal dal waa dal kursi ku leh qaramada midoobay sida darteedna ay tahay inuu yeesho hal calan hal madaxweyne iyo hal baarlamaan laakiin marka aynu ka dhaqaaqno sharciyada iyo khudbadaha siyaasadeed ee aynu eegno xaqiiqada ka muuqata dhulka laftiisa waxa inoo soo baxaya sawir aad u adag ugana murugsan kan aynu inta badan maqallo ama aynu isugu sheekayno warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda midowga Yurub ee arrimaha magangaliyada u qaabilsan ee lagu magacaabay EUAA kana saabsan xaaladda amni ee Soomaaliya intii u dhaxaysay Abriil 2025 ilaa Maarso 2026 ayaa waxa ay bixinaysaa sawir kamid ah sawiradii ugu faahfaahsanaa ee dalka laga bixiyay sanadihii ugu dambeeyay warbixintani ma eegaysa kaliya qaraxyada iyo weerarada dalka ka dhacay waxay isku dayaysaa inay akhriso khariidada awoodda Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa xogta dhacdooyinka amniga adeegsanaysa dhaqdhaqaaqyada kooxaha hubeysan xaaladda gobolada kala duwan iyo gacan ku haynta juqraafi ay dhinacyada kala duwan kala xajisanayaan guud ahaan dalka marka la eego khariidadaas Soomaaliya maanta uma muuqanaysa dal ay hal awood ka taliso Soomaaliya waxay u muuqanaysaa dal ay ku wada nool yihiin awoodo kala duwan kuwaas oo mararka qaar iskaashi sameeya marar kalena si toos ah ama si dadban ugu tartamay cidda saameynta ugu badan ku leh nolosha shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada sawirka guud magacaygu waa Maxamed Cabdi Xaraare caawa sawirka guud kuma eegi doono qaraxyo iyo weeraro waxa aynu isku dayi doonaa inaynu isku dul taagno ama inaynu ka jawaabno su'aal ka weyn dhacdooyinka maalinlaha ah ee mar walba warbixinada iyo idaacadaha lagu arko waa su'aal xanuun badan oo aan filayo in dad badan laga yaabo inay masuugaan ama ay masuugi karaan su'aashaas waxa ay tahay Soomaaliya yaa maanta dhab ahaan uga taliya ka waran adigoo caaboon oo doonaya isbedel laakiin waqtigu uu ku ciilayo aqris ayaad u ooman tahay balse noloshu waa mashquul miiran ku soo dhawow buukoob furaha dhugmada oo aad si degdega ugu furan karto qasnadaha xigmadda waxaad buukoob ka helaysaa aqoontii dunida oo kooban oo ka maran hadal tiro deeqaanso waqtigaaga adigoo ka faa'iidaysanaya aqoonta kooban ee aad gacantaada ku qaadi karto daqiiqada gudahood ku dahqaad fikrado ka noolow buug aad muddo naawilaysay howli'i ujeeddada buukoob ma aha in la aqriyo aqoon dheeri ah ee waa in si caqliyaysan wax loo aqriyo waa ka duwan yahay barnaamijyada kale waa kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo af Soomaali ah ha u ogolaan waqtiyaradu inay kaa weeciso jacaylka aad u qabto akhriska bilow adeegsiga buukoob kobci garaadkaaga kala soo deg abka buukoob App Store-ka ama Play Store-ka iminkaba qaad tallaabada ugu horreysa wahagaag barnaamijka caawa waxa uu bilo u yahay taxano gaar ah oo ku saleysan warbixinta cusub ee EUAA ee xaaladda amni ee Soomaaliya qaybtan koobaad waxa ay noqonaysaa hordhac guud oo aan isku dayayo inuu sawir weyn ka bixiyo halka uu dalka maanta taagan yahay halka qaybaha xiga aynu si gaar ah ugu eegi doono al-shabaab dowladnimada Soomaaliya colaadaha beelaha iyo doorka ciidamada shisheeye ee dalka jooga muddada dheer laakiin ka hor inta aynan mid kasta si gaar ah u falanqayn aynu marka hore eegno khariidada guud ee awoodda Soomaaliya khariidadan si hoose u eeg
waxaa jirta orah ay isticmaalaan xeeldheerayaasha siyaasad degeleedka. orahdaasi waxa ay tiraahdaa khariidaduhu ma muujiyaan oo keliya meesha ay wax ka jiraan, waxay tiraahdaa waxa kale oo ay muujiyaan cidda awoodda leh ee awoodda ku leh meesha ay wax ka jiraan. marka la eego khariidada gacan ku haynta dhulka ee warbixinta EUAA waxaa isla markiiba muuqanaysa xaqiiqo muhiim ah oo aan la iska indhatiri karin. Soomaaliya maanta ma aha dal uu khilaafku ku kooban yahay hal gobol ama hal deegaan. sidoo kale Soomaaliya maanta ma aha dal ay dowladdu si isku mid ah uga taliso dhammaan dhulkeeda ama xitaa qayb weyn oo ka mid ah dhulkeeda. waxaa jira magaalooyin waaweyn iyo xarumo maamul oo ay gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka midka ah dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin warbixintu waxa ay sidoo kale muujinaysaa in qaybo badan oo miyiga ah iyo waliba magaalooyin muhiim ah gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka ay weli yihiin deegaano ay kooxda al-shabaab ku leedahay joogitaan xoogan ama awood ay ku saameyso dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka gobolada ama magaalooyinka. waxaa muhiim ah in la fahmo farqiga u dhexeeyo qabsashada magaalo iyo gacan ku haynta dhul. magaalada waxaa laga yaabaa inay qabsadaan ciidamada dowladda oo mararka qaar kaashanaya kuwa midowga Afrika. waxaa laga yaabaa in uu dul babanayo calanka qaranka. waxaa laga yaabaa inay ka shaqeynayaan maamulka degmada iyo hay-adaha dowladdu. hase yeeshee haddii wadooyinka magaalada gala iyo kuwa ka baxaya ay noqdaan kuwa aan amni lahayn, haddii ganacsatada halkaa ka howlgasha ay laba dhinac canshuur ka bixiyaan, ama haddii dadka deegaanku ay ku qasbanaadaan inay adeegsadaan diyaaradaha markay isaga dhex gooshayaan magaalooyinka ama magaalooyin aan sidaa u kala fogeyn, markaas su-aasha ah yaa dhab ahaan awoodda leh waxa ay noqonaysaa mid aad u adag. waxa ay noqonaysaa mid ka weyn sida marka hore ay u muuqato. markaana waa sababta warbixintu ay muhiim u tahay. waxay naga fogeynaysaa doodaha siyaasadeed oo marar badan ku salaysan sheegashooyinka, waxayna dib inoogu celinaysaa xaqiiqada dhulka ka jirta. marka la isku geeyo xogta warbixinta waxaa muuqata in Soomaaliya maanta ay ku jirto marxalad kala guur ah oo aan si buuxda loogu tilmaami karin guul ama fashil dhammaystiran. dowladda Soomaaliya waxa ay ka xoog badan tahay ama waa ay ka xoog badan tahay sidii ahayd 10 sano ka hor, balse sidoo kale al-shabaab weli waxa ay leedahay awood si muuqata uga dhex jirta qaybo badan oo ka mid ah dalka. khariidadu sidaa darteed ma aha sawir juqraafiyeed oo keliya, waa sawir ka hadlaya heerka ay gaarsiisan tahay dowladnimada Soomaaliya. waana sawir laga yaabo inuu inoo sheego wax ka badan 100 khudbadood iyo kumanyaal waraysi siyaasadeed wax la inoogu sheegay. marka warbixinta EUAA si taxadar leh loo akhriyo waxaa soo baxaya sawir ka adag kan inta badan lagu soo koobo ereyga dagaalka al-shabaab. sababtoo ah Soomaaliya maanta kuma jirto hal dagaal, mana jirto hal awood oo qaabeynaysa mustaqbalka Soomaaliya guud ahaan. taa beddelkeeda waxaa muuqata in ugu yaraan 4 awoodood oo si joogto ah ugu loolamaya saameynta sharciyadda iyo maamulka ay Soomaaliya ka wada jiraan. awoodda koobaad waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dabcan oo iyagu haysta sharciyadda qaranka. awoodda labaad waa al-shabaab. awoodda saddexaadna waa nidaamyada dhaqanka iyo awoodaha beelaha, halka awoodda afraad ay noqonaysa ciidamada shisheeye iyo quwadaha dibadda Soomaaliya ka taageera. qof kasta oo isku dayaya inuu fahmo Soomaaliya maanta isagoo eegaya hal awood oo keliya waxay runtii u badan tahay inuu arko sawir aan dhammaystirnayn ama aanu faham buuxa dalkaba ka haysan. sababtoo ah mararka qaar dowladda ayaa awoodda ugu badan ku leh meelaha qaar, mararka qaarna al-shabaab ayaa saameynta ugu badan ku leh meelaha qaar, mararka qaarna go'aamada ugu dambeeya ee deegaamada qaar ama gobolada qaar waxaa leh oday dhaqameed ama maleeshiya beeleed. dhanka kale muddo ku dhow 20 sano amniga Soomaaliya laftiisu waxa uu qayb ahaan ku tiirsanaa ciidamo iyo taageero dibadeed, taas oo ka dhigaysa in sawirka awoodda dalka aanu ku koobnayn hay-adaha iyo darafyada Soomaalida ah oo keliya. marka la isku geeyo 4 awoodeed waxaa soo baxaya
nidaam aada u murugsan ama uga murugsan qaabka dowladnimo ee caadiga ah. laakiin tani maaha xaalad u gaar ah Soomaaliya. taariikhdu waxayna tusaysaa in wadamo badan oo kasoo kabanaya colaadaha sokeeye ay soo mareen marxalada ee awooddu u qaybsaneyd siyaabo kala duwan ka hor inta aanay dowladdu si buuxda gacanta ugu dhigin dhulkeeda iyo maamulkeeda. su-aasha Soomaaliya maanta taalase maaha in awoodahaasi kala duwan ay jiraan iyo in kale. dabcan awoodahaasi waa ay jiraan, waana dhab. awoodahaasi waa ay xooggan yihiin, waana hubaal. su-aashuse waxa ay tahay midkee ayaa mustaqbalka noqon doona awoodda ugu weyn ee wax ka dhabeeya ama wax saameeya. mid ka mid a waxyaabaha ugu xiisaha badan ee warbixinta lagu soo qaatay ayaa ah in marka la eego khariidada gacan ku haynta dhulka, dagaalka sokeeye waa mid weli socda. gobollo badan oo dalka ka mid ah, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaa muuqanaya sawir ay isku dhex jiraan deegaano ay dowladdu maamusho, deegaano ay awooddu al-shabaab leedahay oo si xoogan ay uga jiraan, iyo meelo aanay cidina si buuxda gacanta ugu hayn. warbixintu si gaara waxay u tilmaamaysaa in qaybo muhiima oo ka mid a Jubbada Dhexe oo ay weli yihiin meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab oo ay ka howlgalaan. magaalada Jilib tusaale ahaan maaha magaalo kaliya, waxa ay noqotay astaan. sababtoo ah sanado badan kadib markuu dagaalku socday, weli waxay u taagan tahay xaqiiqo ah in kooxda al-shabaab ay leedahay xarun juqraafiyeed oo muhiim ah oo ay ka soo abaabulaan howlgalladooda. tani waxay inoo sheegaysaa sadar muhiim ah. dagaalada jabhadaha laguma guulaysto kaliya marka magaalooyinka laga qabsado. dagaalada jabhadaha ama dagaalada kooxaha argagixisada waxaa kaliya lagu guulaystaa marka awoodda kooxda laga saaro nidaamka dhaqaale, maamulka iyo kan bulshada. ilaa heerkaas la gaarana kooxdu waxa ay mar walba heli kartaa fursad ay dib ugu soo laabato oo ay usoo laba kaclayso. mar kale waa sababta ay khariidadu muhiim u tahay. waxayna tusaysaa meesha uu dagaalku maanta jooga, laakiin sidoo kale waxayna tusaysaa halka uu dagaalku berri joogi karo marka amniga laga hadlayo. marka laga gudbo khariidada oo la eego tirikoobyada warbixinta, waxaa iyana soo baxaya sawir kale oo muhiim ah oo runtii xiiso badan. warbixintu waxa ay diiwaan gelisay kumanyaal dhacdooyin amniha intii u dhaxaysay Abriil 2025 ilaa Maars 2026. waxaa dhacay dagaalo toos ah, waxaa la diiwaan geliyay oo dhacay qaraxyo, waxaa la diiwaan geliyay oo dhacay weeraro lagu qaaday rayidka, waxaa sidoo kale dhacay oo la diiwaan geliyay isku dhacyo beeleed, waxaa dhacay howlgallo amni ama howlgallo military oo iyana la diiwaan geliyay. laakiin waxa ugu muhiimsan ma aha tirooyinka iyo waxa dhacay laftooda, waxa ugu muhiimsan waa qaabka ay tiradu u qaybsan tahay. marka la eego gobolada ugu rabshadaha badan, waxaa muuqata in colaaddu ay si gaar ah ugu urursan tahay meelaha ay ku kulmaan 3 arrimood. 1. joogitaanka al-shabaab. 2. tabardarrada dowladda. iyo 3. meelaha ay ka jiraan muranada bulshada. marka aan taariikhda dagaalada casriga dib u eegnana, waxaanu helaynaa cashir muhiim ah oo ina baraya xaqiiqo fudud. meel kasta oo ay dowladi ka maqan tahay, awood kale ayaa buuxinaysa booskeeda. haddaba su-aashu maaha booskaa bannaanaaday, ee su-aashu waxa ay noqonaysaa waayo cidda booska bannaanaaday buuxinaysa. waxaa laga yaabaa inay tahay su-aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa warbixintan guud ahaan, laakiin waxaa sidoo kale laga yaabaa inay tahay su-aasha ugu adag in laga jawaabo. sababtoo ah marka la eego dhinaca militariga, sidaan hore usoo sheegay, dowladdu maanta waxa ay ka xoog badan tahay sidii ahayd 10 sano ka hor. dowladdu Soomaaliya waxa ay leedahay ciidan ka badan kii ay lahayd 10 sano ka hor. waxa ay leedahay taageero caalami ah oo ka ballaaran tii ay haysatay 10 sano ka hor. waxa ay leedahay hay-ado ka xoogan ama ka xoog badan kuwii ay hore u lahayd. laakiin dhinaca kale, warbixintu waxa ay sidoo kale muujinaysaa in kooxda al-shabaabna ay weli tahay cudud amni oo xaqiiqo ah, awoodna ay u leeyihiin inay weeraro fuliyaan, dib isu soo abaabulaan, isla markaana ay sii wadaan dagaalka. haddaba halkee bay wax iska qabsan laayihiin? maxay dowladdu u gaari la-dahay guulo dhab ah oo waara oo nagaada? waxa ay su-aashaasi furaysaa su-aal kale. maxaa lagu qeexaa guul?
haddii magaalo in la qabsado balse amnigeeda uu sii jilicsanaado ma guulba haddii meel ciidamo la geeyo balse adeegyo aan la gaarsiin ma guulba haddii shacabka deegaanka aanay dareemin isbeddel muuqdo oo noloshooda ku yimid marka ay dowladdu timaado deegaankooda ma guulba taariikhyahanka reer Britain ee lagu magacaabo Paul Kennedy waxa uu mar qoray quwadaha guuleysta ma aha kuwa ku guuleysta dagaalka oo kaliya balse waa kuwa awooda in ay guushooda u bedelaan nidaam waara waxay u badan tahay in sadarkaasi uu yahay cashirka ugu weyn ee Soomaaliya maanta hor yaalla dagaalka dhabta ah maaha qabsashada dhulka dagaalka dhabta ah waa dhismaha nidaam ka sii jira marka uu ciidanku baxo dhamaadka warbixinta iyo dhamaadka doodeena caawa waxaanu mar kale ku laabanaynaa isla khariidadii sababtoo ah khariidadu ma muujinayso oo kaliya meesha ay ciidamadu kala joogaan maanta ama ay kala joogeen sanadihii ugu dambeeyay ee warbixintan la qoray waxa ay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay dowladnimada Soomaaliya waxa ay muujinaysaa halka ay awooddu ku urursan tahay waxay khariidadu muujinaysaa cidda saameynta leh marka la eego sawirka ay bixinayso warbixinta EUAA Soomaaliya maanta maaha dal guul gaaray sidoo kalena maaha dal gabi ahaanba guul dareystay waa dal ku jira marxalad kala guur ah waa dal ay dowladnimadiisu sii dhismayso balse weli ay la tartamayso awoodo kale waa dal weli lagu muransan yahay cidda dhab ahaan uga talisa taasina waxa ay keenaysaa su'aasha ugu dambaysa doodeena 10 sano ee soo socda marka khariidadan dib loo eego ma arki doonaa Soomaaliya oo ay dowladdu si dhab ahaan uga taliso marka khariidadan dib loo eego ma arki doonaa Soomaaliya oo ay dowladdu si dhab ah uga taliso guud ahaan dhulkeeda mise waxaan arki doonaa Soomaaliya oo ay weli ku wada nool yihiin awoodo kala duwan oo ku loolamaya cidda leh xaqa maamulka waa su'aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa warbixintan waana su'aasha aan maalmaha soo socda si qoto dheer u sii dhexgeli doono oo aanu u gorfayn doono tan iyo muuqaalka xiga oo si hoose aan u dhex maquri doono awoodda al-shabaab iyo istiraatiijiyadooda cusub halka ay warbixintu dhigtay ma isku ka saaran yahay sawirka guud